Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Guriceel ee maamulka Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kaga mahadceliyay bulshada ku dhaqan Galmudug soo dhaweynta iyo madaxda Galmudug. Sheekh Shaab Maxamed Jaakir waa u mahadcelinayaa soo dhaweyntana waa ka mahadcelinayaa wiilashii bilaabay halganka oo suurto geliyay inaan halkan iyadoo nabada isugu nimaadnana waa u mahadcelinayaa kulligood. intii dhimatayna waxaan leeyahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Guriceel maanta waxaa hor taagan ra'iisul wasaarahoodii, waxaa fadhiyo taagan sidoo kale taliyayaashii ciidamada qalabka sida. waa taariikh cusub oo isqoraysa soo maaha. waxaan rabaa inaan idin hadlo ad dhegaysataan. waxaan ku bilaabayaa geyigii ayeeyiyo Guriceel ma nabad baa? gogashii ugaaskii oo garabkii ceelbuuray Guriceel ma nabad baa? gurigii gorfayntow gacaltooyo dhowrow Guriceel ma nabad baa? si fiican idinma maqlo. xaruntii ganacsiga weeye Guriceel ma nabad baa? dhul guduudanoo sii guduudan weeye Guriceel ma nabad baa? garoor ari iyo giiro sixin ku hodanay Guriceel ma nabad baa? salaan gacaltooyo naga guddooma reer Guriceelow. maantay magaalada Guriceel waxaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo adduun weynaha inteeda kale reer Guriceel ay u dirayaan fariin ah dowladnimadii Soomaaliya way hana qaaday, Soomaaliya way soo noqotay. fariintaas ayay reer Guriceel dirayaan maanta. waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran. haddaad tihiin walaalaheen reer Guriceel, waxaan rabaa inaan idiin sheego halkan waxaan u nimid idinka inaan idiin shaqayno, inaadna amartaan, inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn Galmudug dhammaystiran, midnimo ku dhisan, cadaalad ku dhisan, horumar ku dhisan, Galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer Galmudug. inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida. diyaar ma u tihiin? hormuudka ma qaadanaysaan? ma nagu hoggaaminaysaan dariiqa saxda? dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer Galmudug la shaqeeyaan. meel walba oo aan tegey, laga bilaabo Dhuusamareeb, Cadaado, Xeraale, Huurshe, Caabudwaaq iyo Guriceel oo aan hadda taagannahay, meel walba oo aan tagnay shacabka reer Galmudug waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay dowlad goboleed u adeegta shacabka reer Galmudug. waxaan aad ugu faraxsanahay idinkuna inaad fariintii aad soo gudbiseen dadka kale ay soo gudbiyeen. waxaan rabaa inaan idiin sheego qolo dawlad laguma dhisi karo, qabyaalad dawlad laguma dhisi karo, nin jeclaysi dawlad laguma dhisi karo. dan gaar ah dawlad laguma dhisi karo. walaalahay reer Guriceel
oo la garanayo taariikhdooda galmudug waxay idinka rabtaa hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay haddii reer gurceel ay u mudoobaan inay wax badan ka tari karaan midnimada inta kale ee reer galmudug waxaan rajaynayaa marka dhallinyarada hooyooyinka gabdhaha soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo reer galmudug oo ay ganacsatada ugu horrayso inaan idhaahdo waxaa la soo gaaray wakhtigii la dhisiga lahaa galmudug midaysan hayaysan oo toosan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh la yaqaan taariikh ka madax bannaan qabyaalad iyo qoloqolo 1948 halgankii SYL markii ay damceen inay allah u naxariistee halyeey cabdullaahi ciise maxamuud u diraan qaramada midoobay ama markay waagaas ay ugu yeeri jireen unada si uu ugu soo sharaxo qadiyadda iyo rabitaanka ummadda soomaaliyeed oo ah in gobonnimo degdeg loo helo wuxuu gumaysigii wakhtigaa ku yidhi dhallinyaradii idinka ficiinna ahaa oo SYL keensada qofka aad rabtaan inaad u dirtaan qaramada midoobay ha la tallaale maadaama ay sharci ahayd in la tallaalo qofka dhoofaya halgamayaashii iyagoo ka baqaaya in la sumeeyo allaha u naxariistee cabdullaahi ciise ayay waxay soo hormariyeen nin la yidhaahdo maxamuud yuusuf muuro oo u ekaa cabdullaahi yuusuf oo naftiisa soo qadimay cabdullaahi ciise ninkii u ekaa allaha u naxariistee oo la tallaalay wuxuu u tegey inuu badbaadiyo nafta cabdullaahi ciise sida halganku uu qiimo u lahaa wakhtigaa isaga ah waayo wakhtigaa isaga ah soomaalidu waxay ahaayeen waddaniyiin waxay ahaayeen dad wada jira waxay ahaayeen dad isjecel waxay ahaayeen dad qoloqolo iyo qabyaaladda ka soo hor jeeda waxay ahaayeen dad midaysan muuro allaha u naxariistee iyo cabdullaahi isku qabiil ma ahayn isku qolo ma ahayn waxa uu naftiisa u qadimay inuu naftiisa u hibeeyo walaalkiis uu u sii wada halganka waxaa la mida 8 wiil oo naftooda soo qadintay si ay maanta noogu oggolaadaan halkan inaan ku caweyno soomaalinimadana ku xusno 8 wiil ilaahay ha abaal mariya halgankoodii waxa uu kalifay in maanta aan idinla hadlayno anigii sheekh shaakir aan u tagnay halgamayaal kale oo ku xaraysan qaybta 12aad waxaan maanta ku guulaysanay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan keenno qaybta 12aad si ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay uga howlgalaan waxaa kaloon maanta ku guulaysanay in wiilashii idinka soo jeeday oo idin difaacayay aan ugu sheego qaybta 12aad horteeda in la qaramayn doono ay qayb ka noqon doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay difaaci doonaan dalka xorayn doonaan gobollada kale ee ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaa kaloon ku soo aragnay qaybta 12aad oo ahaan jirtay lafdhabarta difaaca dalka soomaaliyeed siday u burburtay waxaan ku soo aragnay dalkeennu sidii uu dib ugu dhacay waxaan xasuusannaa markaan dhallinyarada ahayn inta aniga ila da'da ah iyadoo la leeyahay cadow ma imaan kara soomaaliya waayo waxaa jirta qaybta 12aad waxaan geeyey taliyaha xoogga maanta oo khushuucay markuu meeshii arkay dhibka aan aragnay iyo dhismihii dumay iyo meeshii iyada ahayd oo ahayd meeshii difaaci jirtay sharafta soomaaliyeed
waxaan u baahannahay inaan ku celinno meeshii dhib intii aan soo marnay ayaa nagu firan waxaan leenahay marka waa inaan ka barannaa allaha u naxariistee muuro iyo cabdullaahi ciise inaan ka barannaa 8 wiil oo halgamayaasha ah sababtoo ah waxay ku sifaysnaayeen soomaalinimo aan liin baxayn marna aan liin baxayn soomaalinimo aan doorsoomayn soomaalinimo aan fasaqmayn waxaan rabaa walaalahay reer Guriceel marka inaan u sheego dawladnimada hana qaaday idinku aad hormuudka u tihiin si loogu daneeyo dhammaan shacabka reer Galmudug iyo sharafta Soomaaliyeed meel walba ay joogto idinka ayaa la idinka rabaa dawladduna waa adeegayaashiinii idinka idin adeegaysay waxaan rabaa sidoo kale halkan maanta walaalahay reer Galgaduud iyo walaalahay reer Hiiraan inaan iyagana ka codsado si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn matabaan oo ilguulle la yidhaahdo in lagu daadidaayo dhiig waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaw ama reer Galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay yidhaahdo waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo dadkana la islu keeno ay joojisaa qaybna ka geysataa markaasna waa inaan nidhaahdaa mar dambe aqbali mayno in wiilal ay nooga dhintaan macno darro waa inaan nidhaahdaa mar dambe ma aqbalayno in carruurteenna mustaqbalkeeda la xumeeyo waa inaan nidhaahdaa mar dambe yaanan fiirsanin khalad aan wax ka qaban karno waa inaan kulligeen nidhaahdo wakhtigii dagaalka waa dhammaaday reer Guriceel waxaan galnay wakhtigii nabadda wakhtigii nabadoonnimada wakhtigii midnimada wakhtigii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed si aan u soo celinno sharafteenna wakhtigii horumarka waxaan leeyahay marka Guriceel waxaan maanta idinkugu yeerayaa inaad hormuud ka noqotaan wakhtigii nabadda nabadoonnimada midnimada dib u dhiska iyo horumarka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu